ومساجد السوق اليوم بيوبحيان وعن حصوص دوري 10 سنة كهر جماعة مقالة كبحذي مقالة دي مركز كبحيان dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajida amrayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aan tukan mid qaado jamaacada u geeya in odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhib ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaaceen waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir صاروا برقرية وأكفر يستن الباب كي مركو كفري إن جماعة هاي مساجد كان كاسوا بغني وكنسو زيارني ها مزيارة ها زيارة دوانا قانا يوكادي يقولي قل كيف بكون نقضي العقد بصوت هذا زيارة دي وحمودة يقول هذه الطريقة ده صوفية دبري يقول الرارة وزيارة دي شكبلي كان أورنجين يقول اسكاد ما تانو مالين بقى أنا حقيقة جيبوتي يقول اسكاد ما حقي المويان يا إذا الزيارة واحد سكوب بدي شيء إلى هذا الوقت كله زيارة نيا أو واحد بدي شيء إلى هذا التيم كون صوب وقنا كون صوب زيارة نيا واحد بينا كوم سنو واحد بينا كوم كام دون إنه خير كجماعة كير دقيسان وده دقيسان نيا كاسو يعني ورد العقد ده مركز العقد مقاضمه الولي إنت الله هاي وقف العقد ده ويكوي محاتهين ما أنك هذا العقد مقاضمه لكن وقتك هذا كقاضنا وقتك labaatan midhan ma nasiin kartaa soo fariista lacagdiida maana ba arkay buu la yaab bay ku noqotay buu khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad anaku jamaacad waxaan ay martiya magaalada Hiilayaan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay وحلاقنا ما قادتان ما قادنا والعقد أيها نجاب بحياة بالمال والنفس بالمال نفس يدي مالك ينكو صباحنا إلى هاي مركا كله هذا العالم مديسي آخر دي نروش جدا قبره قيامه وفكره مركا ومن هذا الكاد يقول يديه ولقي ما مقلبوري ولقي هذا الكاي لسوق لا ما مقلبوري محاد يقرب تنادري الشيء العقد يقول دي دين وحكى للشيء وحكاربنا أنا كل ما وقفنا هاي أميركي يا جماعة دي أضياش مسكيت كي جوجانه إن الجماعات أوتوا توصل أنت بس أنت أصلا كربنا ما أنت أصلا ونراعي دركي وصاحب لي دلادي خمر قال كي بكريم ورضي الله صعب ساتي وجماعات أصلا راعي وحول الصلاة ما أقام حلو أحباب ماله سكوي سيسو ويسا ما أقامه كان كأكثر سنة سدو سمايا وسمايا صلاة ما أقامه كان كأكتكنه سدو سجود سجود سور ركوع عن الركوع halka intii uu sameeyay ay linear iyo muusir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay yaa soo gashay la in yahdi allah bika rajulan wahida khayrun laka min humri na'am ali nabigu markuu hadalka kulaha dagaal buu diray dagaal خيبر بو نبيكو ودري انه صوبا بي يهود لكن نبيكو كدبا الله وخوري علي اوغو ميان لا دغالما بو كيري لا سليدا اي كنقونيا markaabuu nabiga cali dhageysa buu ka yiri mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geeligiisa casas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa haddii dadku iyagoona lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay yiraahdeen waranaku ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaada maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay masjidkii kaanaan hadana salaadii fajr isagoo lugihiisa ku socdo masjidka soo galay toddoba maalmood
isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timid oo ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannati fayadkhulaha wa fi hadith nabi qala inta taakayn leeg markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wa ala qadarkii hore ugu qorna ayaa Allah hormarinay danda acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood uu cibaadaystay sidaa baa la rajin ilaahay jannada ku galiyo laana khaatimad bay ilaahay hagaaji xusn al-khaatima wa shay ghaliya annaka jamaa bari annaka khaarijina wadanada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilometer waa buuqanay in odayo daadiisa ku qiyaasan dhowr iyo 60 jir markaas jamaacada halkee ka timid xagga ayo dalkii baan ka imanay maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaaranay bas ajiib wakharashka yaa naga bixiya bil maali wan nafs oo fiisaha wadankan lama helo si aad ku hesheen ilaahay baa bixiya rizqaaga hadduu yimaado halkan waa dhiman ama cizi ku kaalay ama dulli ku kaalay maxaad doonaysaa nimka jamaacadii miskiidkaasay joogaan inaan raacdaan doonayno taanu miskiid xaddi uma tagaawada xaddi maalmaha kalena salaadaydana ilaahay baa og buuli laakiin mar haddaad berri ma joogtaan waa xada ha waa niima buuli dalkii Soomaaliya warkiisa rabaayo Soomaaliya haya kaale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono ugu muuqatee Soomaafka Soomaaligu xiiseynaya hayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe baan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii ay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqaysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadaydu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 70 iyo 60 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiire jamaacadu u tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay barku tugada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka saxan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiirsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hadaab soo islaaxaya ummaddan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qayleyno ku badbaadeenayo inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii la naga dalbo inaan diinta u baxno aan baxayna wada istunfirtum fanfiru bunadul habeenka jimcaha markaska ka soo qayb gala kulanka diineed بفضل الله عز وجل أبيك إنه تجمعه بان وفير صدو مساعد وبحسم أيام هدي طولي زماننا دعوة واحد صومر تحلها جماعة المسكيت كمركز كتاقان لقاك لا يعجري ما أنتنا دعوة واحد مريسا إن مراكزتي هلكا يجوك ستافك واجتماع يدي مركي لي هلكا ما لقو قبان لبسنا كدي ماشي يراتي مالك لا لوغوري ماشي ويراتي هذا أنك جيبوتي واحد مرينا ماشي صدحات اجتماع يوه الرئيس سياسني الله بدي laba boqol oo qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiid marka lagu qabtay magaalada dhexda xidhantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii haddana kiina uu xidhmay
kiina waa laga baxay bannaankii magaalada loo baxay bannaankii magaaladana sanadkan 40 kun oo qof ka soo qayb gashay waad ogtihiin war khayrka baa inoo baxay khayrka